sarkaal Mareykan ah oo xaqiijiyay warbaahinta Reuters in Sacuudiga uu ogolaaday diyaaradaha ganacsiga Israel in hawadooda ay ugu gudbaan dalka Imaaraadka Carabta. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in Saudi Arabia ay ogolaatay in diyaaradaha ganacsiga ee Israel loo ogolaado inay ka gudbaan hawadooda iyagoo ku sii jeeda dalka Imaaraadka Carabta. maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Saudi Arabia ay ogolaatay Isniintii shalay in diyaaradaha ganacsiga ee Israel loo ogolaado inay ka gudbaan hawadooda iyagoo ku sii jeeda dalka Imaaraadka Carabta kadib wada hadal dhex maray saraakiisha Sacuudiga iyo la taliyaha aqalka cad ee dalka Mareykanka. sarkaalka ayaa sidoo kale sheegay in ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe lagu magacaabo Avi Berkowitz iyo waliba ergeygii hore ee gaarka ah ee Mareykanka ee Iran Brin Hogg ay arrintan soo bandhigeen waxyar kadib markii ay gaareen Sacuudiga si ay wada hadallo ay ula yeeshaan ayna awood ay u yeeshaan inay xalliyaan arrintaasi.